soo dhawaada cashirkii labaad ee barashada daawada. Pharmacodynamics waxay ka hadashaa sida ay daawada ula falgasho ama u saameyso daawo ahaan qofka jirkiisa. Pharmacotherapeutics waa cilmigii pharmacology-ga oo lagu daray kan daaweynta. Qofka farmashiistaha ah waa in uu yaqaanaa cudurrada. Taasi waxay ka caawin kartaa in uu ogaado xiriirka ka dhexeeya daawada iyo xanuunka. Pharmacotherapeutics waa laf-dhabarta daawada, wuxuuna inta badan awoodda saaraa 3 qaybood oo kala ah: selection – daawada ugu habboon; dosage – xaddi ugu habboon; duration – muddada ugu habboon. Farmashiistuhu waa in uu yaqaanaa cudurrada ugu yaraan 80%. Aqoonsashada cudurka waxa ay ka saacidaysaa farmashiistaha in uu wax ka qabto xaaladda taagan. Clinical pharmacology waa qayb cilmiyaysan oo ka tirsan barashada daawada, waxayna isugu jiraan pharmacokinetics iyo pharmacodynamics. Qofka doonaya in uu barto clinical pharmacology waa in uu xoogga saaraa labadan oo aan kor ku soo sheegnay oo ah pharmacokinetics iyo pharmacodynamics. Pharmacokinetics oo ah sida daawada jirka u gasho ugana baxdo; pharmacodynamics oo ah sida ay daawada jirka wax uga qabato. Marka waa muhiim in qofka doonaya in uu noqdo clinical pharmacologist in uu barto labadaas qodob. The main objectives qaybaha ugu waaweyn ee lagu barto clinical pharmacology waxay kala yihiin: saameynta daawada, waxyeellada daawada ka dhalan karto, isku halaynta iyo badbaadada daawada. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee clinical pharmacology waa in la abuuro data lagu isticmaalo daawada, dhiirigelinta, kor u qaadista, iyo isticmaalka daawada. Waa walaalkiina Cabdisalaam Nuur Axmed Dr. Asna oo idin leh ka faa'iidaysi wacan. La soco cashirkii 3 barashada daawada. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, saaro calaamadda subscribe-ka, isla markaana taabo calaamadda gambaleelka si aad ula socoto fiidiyowga aan soo gelino. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan.